munaasabada lagu sagootiyay ardayda ka baxaysa dugsiga sare ee degmada Laasgeel oo ardaydii ugu horeysay ee fasalada afraad dhamaysta isla markaasina u fadhiisan doona imtixaanka shahaadiga ee fasalada afraad ee dugsiyada sare ayaa ardaydani waxa ay yihiin ardaydii u horeeyay ee ka baxda dugsiga sare ee degmada Laasgeel ama se waa dufcadii koobaad ee ka baxda dugsigaasi munaasabadan ayaa waxa ka qayb galay waalidiinta ay ardaydooda wax ka bartaan dugsigaasi cuqaal maamulka macallimiinta ardayda dugsigaasi gudoomiyaha waxbarashada ee degmada Laasgeel iyo sidoo kale mudan iyo marti sharaf lagu casuumay munaasabadaasi oo goobjoog ka ahaa maamulaha dugsiga sare ee degmada Laasgeel Nuux Axmed Yuusuf ayaa waxa uu ka warramay ardaydan iyo sidoo kale maraaxilkii kala duwanaa ee uu soo maray dugsiga sare ee degmada Laasgeel waxa kale oo iyadana muhiimadeeda leh dugsigu markii hore aan imi laba fasal buu ka koobnaa iyo hal xafiis waxa labadan xafiis hadda labadan fasal hadda aynu ku jirno waxa markii hore noo dhisay maarayada ka dabarbaray isagana aad iyo aad baan uga mahad celinayna hadda dugsigu uu dhameystiran yahay 1 ilaa 4 waa uu dhameystiran yahay afarta fasal baan ku kooban yahay iyo xafiis tirada ardayda hadda dugsiga sare dhigata ku dhawaad 80 arday bay gaarayaan insha Allah way ka sii kordhi doonaysaa haddaba eerka ka aragtaan maadaama ay eerkii ugu tirada badnaa soo baxay sanadkan mid kamid ah ardayda sanadkan ka baxaya dugsiga sare ee degmada Laasgeel ayaa isaguna dareenkiisa ka warramay waxaan uu sheegay in ay yihiin ardaydii u horeysay ee dhameysata dugsiga sare ee degmada Laasgeel xafladan qaaliga lagu sagoojin doono ardayda sanadkan ka baxaysa foorka oo kamid ah anigu iyo ardayda insha Allah soo biiri doonta sanadkan Darbuq Secondary School waxaan u mahad celinayaa macallinkayga qaaliga Nuux Axmed Yuusuf oo maanta halkaan joogay soo gaarsiiyay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee degmada Laasgeel Cali Cabdi Xuseen ardayda ugu horeysay ee secondary Darbuq fasalada afraad ugu horeeyay waxaan ardayda soo tasharifay mudii fasalkii koowaad ilaa fasalkii afraad ee dugsiga sare magaaladoodii ku dhameystay waxay leeyihiin nasiib bay leeyihiin marka waxaan leeyahay sida ay sheegeen maamulayaashu ay ka hadleen waxa jirtay in ardayda foor aan ku bedeli jirno lagu bedeli jiray marka lagu bedelo la geyn jiray guriyo kale dabeecado kale ay la soo bixi jireen ardaydu aanay xubin dhigan jirin oo aanan ogaan jirin laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin maanta hadii ilaa foor ilaa uulo aan guriyahayagii ku helay waalidiinta hadii aan nahayna sharaf bay noo tahay gabagabadiina gudoomiyaha waxbarashada degmada Laasgeel Axmed Maxamuud Xasan oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa tilmaamay marxalado badan buu soo maray maalintii aanu furaynay cidlaan ku furnay meel cidlaa baan istaagnay laba macallin baan hayn aniga Cali iyo baan hayn iyo marka Muuse adan iskuulka ka soo kaxay lahaa naxariisto waa nalaga waalidku waxna gala hor yimaadeen caqabadii ugu badnaa nalaga hor yimaadeen oo hayd bedel nasi bedel bal 9 arday oo ama 10 arday soo baxan lagu raad honkayga bedelkiina si waxay dhibaato badan halkii aan doonayn waxna laga qabto waxay dhibaatooyinkii horta soo maray kamanan iyo jabin kamanaan hadin ilaa maalintii kolba waxba nu dayin